waxyaabaha guusha lagu gaadho iyo liibaanta oo sacaadada iyo liibaantu waxay leedahay asbaab qof kastaana sacaad uu baadi doonaya iyo liibaan siduu nabiguba inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam inuu helo 4 arrimood waa sacaadada dunyawiga iyo ta diiniga labadaba inuu helo diin wanaagsan iyo dal wanaagsan iyo dad wanaagsan iyo dunyo wanaagsan diin wanaagsan waa ta islaamka qofku markuu diinta islaamka ku dhaqmayo raacayo diintii wanaagsanayd baa haystaa qof kasta oo diinta islaamka haysanin wuxuu doonayaba ha hayee sacaado ma helayo badan baa sacaadada loo maray laakiin sacaadada meesha ugu horeysa laga helaa waa diin iyo iimaan man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba la isagoo dhaaranaya wuxuu qofka iimaan yeeshay iyo amal wanaagsan nolol wanaagsan baan noolayn doona hayatan tayyiba waa sacaadadii marka qodobka u horeeya waa diin waxa labaad oo qofku sacaadada uu ku helay inuu joogo dalkiisa marka qofku markuu dalkiisa joogo waxa uu kamid yahay khiyaarta waxa laga yaabaa yartaa tahriibaya cararaya mudanka iyo madaxda iyo culimada iyo maalqabeenka inay noqdaan berito hadday sabri lahaayeen sabraa sadkii hela bay dhaadaan dumarku qofku hadduu sabro sadkiisa wuu heli waa dadkii madaxda noqon lahaa iyo mudanka la yaqaano ee la soo dhaweeyo marka qofku inuu dalkiisa joogo ayuu sacaadada ku helaya iyo inuu dadkiisa la joogo hadduu qurbada galo iyo meesha aan laga garanayn iyo meesha lagu ihaanaysanaya sacaada ka dhimata raaxa ma taalo liibaani ma jirto wuxuu qofku sacaado ku helaya inuu maal wanaagsan helo maalka wanaagsan la helaya waa maal xalaal ah ni'mal maalu saalih lirajuli saalih sidoo nabigeenu leeyahay calayhi salaatu wasalaam maal baa wanaagsan qof wanaagsan oo hayo maalkuna waa marka uu xalaal yahay